saxnida sideed ku ogaatay nama seegana warkooda ka dhageyso radio Hiiraan Weyn wararkii ugu dambeeyay ee ku saleysan xaqiiqada oo dhexdhexaada dhameystiran hufan oo la soo xulay ka dhageyso radio Hiiraan Weyn udub dhexaadka warbaahinta wanaagsan dhageystayaal meel waliba aad joogtaan iyo waliba maqalka iyagu idin soo gaaraya kuna soo dhawaada warka duhurnimo ee Hiiraan Weyn qodobada aad ku maqli doontaan warka iyagana waxa kamid ah ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo al-shabaab dib uga la wareegay deegaano badan oo shalay lagu la dagaalamay ururka al-shabaab dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo beenisay in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya loo diiday in uu baasaboorka diblomaasiga ah markaasi dalka kaga dhoofo Mareykanka oo lafta gareen kala hadlay doorashada la filayo in ay dalka ka dhacdo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo la wareegay deegaanada dhacajiinka webiga dibadana waxa aad ku maqli doontaan Suudaan oo danjiraheedii Kenya dib ugu yeeratay xilli ay xiisad ka dhex taagan tahay labada dal. Soo gudbinta warkan waxa idin suura galiyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. markale duhurnimo wanaagsan dhageystayaal waa Jimco 22ka bisha Febraayo sanadka 2025 kuna soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilaawna ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dib ula wareegay deegaano badan oo shalay lagu la dagaalamay ururka al-shabaab Yaasiin Cali Axmed ayaa warbixinta warkani soo koobaya militariga Soomaaliya oo ay ka barbar dagaalamayaan dadka deegaanka isla markaana caawinaad ka helaya saaxiibada caalamiga ee dhanka hawada ka taageera ayaa kooxda al-shabaab waxay dib uga saareen dhowr deegaan oo kamid ah kuwii sida weyn loogu dagaalamay maalnimadii shalay deegaanada gacanta kooxda al-shabaab laga saaray waxaa kamid ah Al-Kawthar iyo sidoo kale Daarunicma oo ah deegaano muhiim ah isla markaana shalay dagaalo culus kadib oo gacan galay kooxda al-shabaab saraakiisha militariga Soomaaliya iyo sidoo kale hogaamiyaasha dadka deegaanka ayaa howlgaladan si guud uga qayb qaadanayay waxaana dagaalka ku soo biiray ciidanka danab iyo xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo nawaaxiga Al-Kawthar howlgalo culus ka sameeyay xalay ilaa iyo sidoo kale saakay taliyaha militariga Soomaaliya oo Yuusuf Raage oo gaaray qaybo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa isugu yeeray saraakiisha hogaamisa codad kala duwan ciidanka deegaanka waxaana saraakiisha awaamir lagu siiyay in si buuxda loo nabadgeliyo deegaanada gacanta al-shabaab galay muddo kooban dhowrkii saacadood ugu dambeysay sidoo kale General Yuusuf Raage ayaa amarkiisa waxa ciidamo looga soo saaray qaybo ka tirsan gobolka Galgaduud ee Galmudug si gaar ah degmada Ceeldheer kuwaas oo ka qayb noqday guluf ka dhanka kooxda al-shabaab ee laga sameeyay deegaano hoostiga degmada Aadan Yabaal oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe kooxda al-shabaab ayaa weerar 4 deegaan ay ka geystay shalay waxay ku qaaday gobolka Shabeellada Dhexe kuwaas oo kala Ceel Cali Axmed Al-Kawthar Daarunicma iyo sidoo kale deegaanka Califool Dheere aad buu mahadsan Yaasiin Cali Axmed oo warbixinta warkaasi inala socodsiinaya markana haddii aynu eegno madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdilcasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kulan xasaasi ah kula qaatay danjiraha dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Richard danjiraha Mareykanka iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdilcasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan ammaanka doorashooyinka iyada oo labada mas'uul ay isdul istaag ku sameeyeen muhiimadda ay leedahay nidaam la isku haleyn karo iskuna waafaqsan yahay oo doorasho ay kaga dhacdo guud ahaan Soomaaliya intii kulankani uu socday waxa sidoo kale lagaga hadlay sidii dib loogu soo celin lahaa mashaariicda dowladda Mareykanka oo ay ka wadi deegaanada maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale xaqiijinta ammaanka guud ee deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdilcasiis lafta gareen ayaa waxa uu xoojiyay in la dardar geliyo dadaalada ka dhanka ah
iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab si kor loogu qaado islamarkaana ammaanka dib loogu soo celiyo deegaanada maamulkaasi. sidoo kalena waxaa lagu sheegay bayaan ay soo saartay safaaradda maraykanka in soomaaliya ay kasoo saartay kulankan. mowduucyadan kale ee lagaga hadlay kulankan waxaa ka mid ahaa muhiimadda ay leedahay in mudnaanta la siiyo la dagaalanka kooxaha loogu yeeraa argagixisada iyo sidoo kale horumarinta ay leedahay diblomaasiyadda soomaaliya oo la marinayo in markaasi dib loo soo celiyo. waxaa sidoo kale dhinacyadu ay isla soo qaadeen in dib loo mariyo in doorashooyin xor iyo xalaal ah ay dalka ka qabsoonto nidaam loo dhan yahay oo la taageersan yahay islamarkaana ay dhinacyadu ay ku kalsoonaan karaan sida lagu qoray barta eges ee hore loo oran jiray Twitter. kulankani ayaa imaanaya xili madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen uu mar kale isku diyaarinayo inuu xilkaasi uu qabto islamarkaana uu quudareynayo inuu mar kale madaxweyne ka noqdo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. islamarkaana uu xiray murashaxiin culus oo la tartami lahaa kuwaasi oo uu ka mid yahay hogaamiyaha mucaaradka koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Ibraahim Macalin Nuurow kaliya ma aha shakhsiyaadka Lafta Gareen uu xiray arrimaha siyaasadda balse waxaa jira siyaasiyiin kale oo dhalinyaro ah islamarkaana abwaane iyo dad kale oo markaasi xisbiyada ka buuxa kuwaasi oo loo xiray aragtiyadooda siyaasadeed. sidoo kale siyaasiyiin badan oo kasoo jeeda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka baqaya in ay dib ugu laabtaan deegaanadooda cabsi ay ka qabaan in Lafta Gareen darto kuwaasi oo intooda badan ay ku sugan yihiin magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. kulankani ayaa kusoo aadaya xili waa markaasi guddiga doorashooyinka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay aad markaasi ay u wadaan dadaalo ay ku bixinayaan in dalka ay dib kaga qabsoonto doorasho qof iyo cod ah muddo 50 iyo dhowr sano kadib. markana dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa beenisay in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble loo diiday baasaboorka diblomaasiga ah si uu dalka kaga dhoofo. Shukri Baryere Maxamuud ayaa warbixinta warkani soo koobaysa. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa beeniyay wararka sheegaya in baasaboorka diblomaasiga loo diiday ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Maxamed Xuseen Rooble. Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in warqadda codsiga ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble looga jawaabay balse aanay jirin war ka soo yeeray dhankooda oo uga hadlay wararka lagu hadalhayo baraha bulshada ee ku saabsan in baasaboorkan loo diiday ra'iisul wasaaraha hore. Fiqi ayaa intaas ku daray in aanay jirin sifo ama hab maangal ah oo Maxamed Xuseen Rooble looga hor istaagi karo codsigiisa baasaboorka diblomaasiga maadaama uu dalka kasoo badbaadiyay xaalad dagaal islamarkaana horseeday in doorasho dhacdo. horta waxaa ilaahay mahadiisa maalin maalmaha ka mid ah waxaan taagnayn hebel oo ma safri kartid madaxweyneyaal laba ah in airboortka laga hor istaagay baan taagnayn. maantana waxaan leenahay warqadii loo baahnaana looma qorin. dowladda warqadaan uga baahnayn warqadiina looma qorin maaha waxbaana laka hor istaaga warqadiina lakuma qorin. waa qodob shalay nimankii lahaa waxbaana loo diiday shirki ugu weynaa bay qabsadeen maalinka ku xigtay. xagee ku qabsadeen? meeshii ay lahaayeen waana lakugu diiday ku qabsadeen. taasi marka inay iska hadalla yaryar oo iska rakhiisa inay tahay oo isan dee wax lagu goosanayo wax la rabo in lagu goosto ama lagu ceebeeyo dowladda inay tahay markii ceebka loo waayo waa iska muuqataa. arrinta Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaarihii hore xushmad iyo qadarin weyn baa looga hayaa. runtii dee meesha uu dalka ka soo saarayna waa la ogaa. nin maantay warqad loo diidana inuusan ahayn cid kasta way ogta. warqadii waan haynaa 1 bisha February oo naga soo codsaday the same day oo 1 bisha February ayaan u qornay safaaradda South Africa asagii waftigu hogaaminaya. warqadiina waa haynaa safaaradda South Africana way gaartay. marka anigu ma ogi meel lagu diiday. Maxamed Xuseen Rooble inta hadlay anu hadda ma maqal meeluu inta ku hadlay ku yiri waxbaa la diiday. laakiin waan arkay war la wadwado la leeyahay Maxamed Xuseen Rooble diiday. marka uu hadlo markaasi dowladda Soomaaliya ay jawaab ka bixin kartaa. aad bay mahadsantahay Shukri Baryere Maxamuud oo warbixinta warkaasi inala socodsiinaysay. dhinaca kalena ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa dib ula wareegay deegaano dhaca jinka webiga kuwaasi oo ay ku sugnaayeen ururka al-shabaab. deegaanadani oo dhowaan ay ku dagaalameen ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kuwa deegaanka ee loo yaqaan macawisleyda iyo sidoo kale ururka al-shabaab ayaa ciidamadu dib ula wareegeen.
waxaa la arkayay muuqaalo laga soo duubay ciidamada oo markaasi ku sugan goobihii ay kala wareegeen ururka al-shabaab waxaana sidoo kale ay soo bandhigeen qaar ka mid ah hubkii ay ka furteen. shukro meeshaan waxaa waaye shallow meeshaan meesha xafiisku aad waaye doontaan midii ku gudbi jireen waaye meeshaas xabsigii waaye meeshaas masaajidkaas waa masaajidkii dadka ay ka raacdeysteen kaawadan meeshaan ku xiran meeshaan waxaa la yiraahdaa huu ka bari waaye busle la yiraahdaa busle jaamica misr isku darka lama hubi jaamica misr waaye waa sii soconaa hadda waxaa jirnaa meesha la leeyahay koowane waxaa ku sii xigta farbaraki ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka Afjar alxamdulillah waa guuleysteen cadawgii haduu leeyahay meeshii waa ka dul qaadeen. halkaad weli nagala socotaana waa hiiraan weyn qodobadii gudaha ayaa dhegeysateen markana dibadda. xukuumadda militariga ah ee Suudaan ayaa waxay dib ugu yeeratay danjirihii u joogay dalka Kenya si ay uga ashtakooto go'aanada Nairobi ee ku martigelinaysa kooxda hubeysan ee RSF iyo sidoo kale kooxaha gacan saarka la leh oo ay doonayso in ay dowladda waa markaasi kooxdan oo dowladdu ay markaasi dagaal kula jirto sida ay faafisay wakaaladda wararka ee Suudaan oo soo xiganaysa dhambaal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan. danjire Kamaal Jabra ayaa waxa u yeeray isla markaana looga yeeray magaalada Khartoum si looga wada arinsado jawaabta laga bixin karo tallaabada Kenya ay ku martigelinayso mucaaradka hubeysan ee dagaalka kula jira ciidamada qaranka. xiisadan xoogan ayaa ka dhex qaraxday dalalka Suudaan iyo Kenya kadib markii xoogaga taabacsan kooxda RSF ee dagaalka kula jira ciidamada uu hogaamiyo Generaal Burhan ay shir ku yeesheen magaalada Nairobi halkaasi oo ay ku dhawaaqeen qorshe ay ku doonayaan dhismaha dowlad gaar ah oo maamulka Khartoum. wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan oo waa markaasi daacad u ah taliyaha ciidamada dalkaasi Cabdulfataax al-Burhan ayaa waxa ay ku dhaleeceysay Kenya in ay ku xadgudubtay xeerarka caalamiga ah ee dhowraya jiritaanka iyo madax bannaanida Suudaan maadaama ay ogolaatay in dalkeeda lagu qabto shir sida ay sheegtay lagu wiiqayo qarannimadeeda. hase yeeshee Kenya ayaa dhambaalkaasi iska fogeysay iyo eedeymahan kale ee la socday. Suudaan ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay ku eedeysay dhageeda Kenya in ay ku xadgudubtay xeerarka caalamiga ah maadaama ay gogol u fidisay isla markaana ay ku sugan yihiin fallaagada RSF oo la haysto dambiyo dagaal oo ogaatay in ay dalkeeda markaasi ku qabteen shirar ay kaga arrinsanayaan isla markaana ay sheegeen in uu wiiqayo wadajirka dhuleed ee dalkeeda. dowladda Kenya ayaa dhankeeda waxa ay difaacday ficiladeeda waxaana ay sheegtay in doorkooda uu ku habboon yahay fududeynta wadahadallada dhex mara kooxaha isla markaana ay dhexdooda ay dhexdhexaad ka tahay khilaafkan ka dhexeeya kana aloosan gudaha Suudaan. Kenya waxa ay intaasi ku dartay in ay markaasi ay caddeyn tahay amaba in ay caddeyn tahay in ay tahay martigeliyaha geeska gobolka nabadda iyo sidoo kale diblomaasiyiinta dib u heshiisiinta gobolka haatana doorkeeda uu yahay shirka uu ku eg yahay nabad iyo sidoo kale inay dhinacyada isku keento. laakiin Suudaan marnaba kama aysan qaadanin dooda Kenya waxaana ay Nairobi ku eedeysay in ay taageero buuxda siisay fallaagada RSF oo hogaamiye Maxamed Xamdaan Daglo. wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan oo hadlaya ayaa waxa uu ku andacooday in ay qayb ka tahay shirqool lagu dhisayo dowlad lamaanaha waxaana madaxweynaha dalka Kenya William Ruto lagu eedeeyay in uu xiriir soo jireen ah uu kala dhaxeeyo Suudaan iyo Kenya isla markaana oo markaasi shakhsiyaad iyo kuwo gacan saar uu la leeyahay uu leexinaya arrintan waxaana lagu sheegay hogaamiyaha fallaagada RSF Maxamed Xamdaan Daglo. waa markii labaad ee Suudaan uu u yeerato danjiraheeda Kenya xiriirka kala dhaxeeya iyo sidoo kale Generaal Maxamed Xamdaan Daglo awgood. guud ahaanba warkii duhurnimo aad kala socoteen hiiraan weyn ayaa intaasi ku idil duhurnimadan waxaa idiin warramaya Cabdiraxmaan Macalin Muuse tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda ka dhageyso idaacadda Hiiraan.